Number 2 guddiga amniga galmudug wuxuu mamnuucay dhammaan hubka iyo gaadiidka dagaal ee lagu dhaxaysto galmudug gaar ahaan magaalooyinka deegaan doorashada ah sida caasimadda galmudug iyo gaalkacyo. Number 2 waxaa lagu wargelinayaa dhammaan shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleedka galmudug in ay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga, muujiyaan feejignaan badan, la soo wadaagaan laamaha amniga xogta iyo falalka ka dhanka ah amniga. 3 laga bilaabo maanta 4 August 2021 ma jiri karto wax hub ah oo magaalooyinka aan kor ku soo sheegnay lagu dhex wadan karo oo aan ka ahayn hub fasax looga haysto laamaha amniga. 4 ma jiri karo askari ama ciidan hubaysan oo magaalooyinka dhex lugeyn kara oo aan ka ahayn ciidanka loo xil saaray sugidda amniga guud gaar ahaan magaalooyinka. 5 waxaan faraynaa ciidamada qalabka sida in ay ka feejignaadaan in ay xabad ridaan iyadoon aan lagu gudanaynin waajibaad shaqo. 6 waxaa la mamnuucay gabi ahaanba in eerboorada galmudug si guud gaar ahaan magaalooyinka doorashadu ka dhacayso sida caasimadda galmudug iyo gaalkacyo in laga soo dejiyo ama la soo geliyo hub gaadiid dagaal oo aan fasax loo haysan. 7 ma jiri karo qof ku haysan kara hub ciidan ama agab dagaal oo aan fasax ka haysan hay'adaha amniga. 8 hay'adaha amnigu waxay tallaabo ku habboon ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xadgudubta awaamirta aan bixinay. mahadsanid. Wabillahi tawfiiq.